dhawaan ayay ahayd markii shacabka ku dhaqan degmada Sheegoosh ee gobolka Qoraxay ee cabasho ay ka muujiyeen biyo la'aan ka jira degmada Sheegoosh ee xarunta degmada Sheegoosh waxaa ku yaala hal ceel oo kaliya kaasi oo markaasi aan ka fargelin karin amaba aan ku fileen biyihiisa inuu magaalada uu markaasi uu wada gaaro waxaana bulshadu ay xukuumaddu ay cod dheer u direen in markaasi baahidaasi dhanka biyaha ee ka jira degmada wax laga qabto hadda waxaa degmada Sheegoosh soo gaadhay riigii markaasi qodi lahaa ceelka labaad ee markaasi degmadu ay yeelanayso muddo bil ka hor ayay ahayd markii mas'uuliyiin heer deegaan ah oo horkacay wasiirka xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka ee dowladda Soomaalida ay kormeer ay ku soo mareen degmada Sheegoosh iyo qabalayaasha hoos yimaada kormeerkani ayaa ahaa mid lagu kuurgalayay xaaladda bulshada haddaba cabashada ugu badan ee dhanka bulshada ka imanaysay ayaa ahayd baahida dhanka biyaha maadaama aysan degmadu ay lahayn ceelal ku filan oo ay bulshadu ay ka cabto ayadoo haddaba baahidaasi laga duulayo ayaa waxay xukuumaddu ay jawaab degdeg ah ay ka bixisay cabashadaasi bulshada waxaana degmada Sheegoosh soo gaadhay riig kaasoona loogu talagalay inuu qodo ceel biyood la filayo inuu wax weyn u ka tari doono baahida biyo la'aaneed ee ka jirtay degmada Sheegoosh bulshada ku dhaqan degmada Sheegoosh ayaa si weyn u soo dhaweeyay danqashada iyo jawaabta degdega ah ee dawladdu ay sameysay sheegayna in ay ku faraxsan yihiin ceelkani loo qadayo magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Nuur Macalin Ibrahim Xujaale anigoo ku hadlaya magaca odayaasha degmada Sheegoosh waxaan marka hore aad iyo aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol socdaalkii hadda ka hor nagu yimid wasiirka Cabdi Nuur Faarax oo maaragtay xildhibaan degmada Sheegoosh musharaxiinta ka mid ah kadib markii shacabku ay u soo bandhigeen baahida ka jirta degmada Sheegoosh inay tahay baahida koobaad inay tahay biyo xisbiga barwaaqo xafiiska biyaha iyo wasiirku ay xubno ka yihiin jawaab degdeg ah oo shacabka aad u farax gelisay yaa markiiba nooga timid ceelkii iyo riigii baa naloo keenay aad baan ugu faraxsannahay waan ugu hambalyeynaa xukuumadda iyo xisbiga barwaaqo iyo wasiirka Cabdi Nuur Faarax ee arrintan noo fuliyay markaan shacabka degmada Sheegoosh aan codsiga u gudbinay bal ka waran baahida hore dhanka biyaha degmada sidee baahida ka jirtay dhanka biyaha ee degmada Sheegoosh baahi aad iyo aad u ballaaran bay runtii ahayd waxaa jirtay in magaaladu oo dhowr xaafad ka kooban xaafadii ilaa 4 beri inay biyaha ay ka maqnaadaan marka baahi aad iyo aad u jirtay ahayd oo aad loogu baahnaa waxaana ballan qaadana inaan amni ahaan iyo ka qaybgal ahaan inaan qaybtan aan ka qaadano maadaama baahida koobaad ee degmada ahayd biyaha jawaabtii xisbigan aan helay inaan garab istaagno iyo annagana naga go'aan hadii la yiraahdo anigu waxa la dhahaa Faarax Sheekhuuli waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Sheegoosh ceelkan waxaan u arkaa in waqtigii ugu habboonaa inuu ku soo hagaagay iyadoo oo maaragtay wasiirku kormeer noogu yimid wasiir Cabdi Nuur wasiirka macdanta iyo tamarta baayaha naga markuu ogaaday ceelkan marka uu isagu ka qayl dhalaamiyay kadibna uu ku soo guuleystay inuu maaragtay yimaado ceelkii oo nala qodo oo maaragtay la keeno aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxtar badan oo maaragtay bulshada iyo deegaankaba wax badan inuu ka tari doonana waan aaminsanahay dhibaato oon baa ka jirtay degmada oo maaragtay hal ceel bay degmadu leedahay halka ceel kuma filayn dadka iyo dunyada meesha ku nool marka waxaan u arkaa ceelkan ceel waqtigiisii ku soo hagaagay bulshaduna ay ku baahi bixi karto iyo maaragtay deegaanka dhanna maaragtay laga baahi bixi karo inuu yahay wayna ku mahadsantahay xukuumadda maaragtay deegaanku wax badan oo maaragtay aan ka codsanay buu kamid yahay oo ay noo qabatay xukuumaddu dhankiisa wasiirka xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka ee dowladda Soomaalida mudane Cabdi Nuur Faarax oo la hadlay SRTV ayaa sheegay in ceelkani uu ka mid yahay codsiyadii bulshada tabashooyinkii kalena dhawaan la fulin doono muddo hadda laga joogo wax ka yar bil 20 beri yaan kormeer u nimaanay degmada Suguud anagoo ka mid ahayn mas'uuliyiintii heer deegaanka kormeerka ku sameeyay deegaanada degmooyinka gobolka kabacdi markii aan nimaanay waxyaabaha ugu daran ee dadku baahi ahaan ay noo soo dhigeen waxay ahayd ceel inay jirto dhibaato xagga biyaha ah kormeerkii aan sameeyay waxa noo soo baxday ceelkan hadda wada inuu san noqonayn mid wadaya dadka kabacdi baahidii dadweynaha gudbinay xafiiska biyaha heer deegaan baa gudbinay in ka yar 20 beri gudahood bay nooga soo jawaabeen ceelkiina way keenan maanta la bilaabayaa ceelkii hore hadda shaqeynayay laba ceel bay meesha lahaan jirtay degmadu maadaama ay tahay degmooyinka hore qadiimiga ah mid alla xidho waxa loo xidhay dhinaca cabida bini'aadamka nooc ka yar bedelan buu noqdo cusbi iyo waxa uu yeeshay ka wala joojiyay kii dambana
maadaama in badan la isticmaalayay cimrigiisii xilli ka badan la isticmaalay awoodiisa baa yaraatay sidaa daraaddeed halkii ceel uu ku filaan waayey oon aad u badan oo dadku ciddii u timaadaba ay baahida u dhigayaan bay ahayd kabacdi baahida waan ku gurgalay waan gudbinay xafiiska biyaha dowladda deegaanka Soomaalidu si fiican oo naxdin leh ayay arrinta naga aqbaleen ceelkan degmada iyo bulshada iyo dhammaan maamulka waxaan kula talinayaa ceelkaas xilliga uu socdo inay waqti badan geliyaan kormeerkana ku sameeyaan baahiyaha dadka ceelka fulinayna inay la socdaan oo ceelkaasi sidoo uu u hirgeli lahaa dadaalka badan lagu soo fuliyay inay qaybtooda ka qaataan baan kula talinaynaa gudoomiyaha degmada Sheegoosh mudane Maxamed Xaaji Dayib ayaa sheegay in uu ceelkani wax weyn u ka tari doono baahida biyaha ee degmada Sheegoosh ka jirtay guud ahaan kullee degmada markaan dhanaano hal ceel oo gaboobay baa ka sii jiray oo magaalada aad u weyn waxaan halka ceel oo aan biyo ku filan bay ahayd marka kormeer noo yimaado oo heertaan ka yimaaday ayaan cabashada u geynay inay biyo la'aan ay magaalada ka jirto taa darteed marka si degdeg ah ceelkan loogu keenay sidoo qorshaha ku jirin marka ceelkan hadii loo qodo waxaan rajaynaynaa inay noqonayso biyo ku filan ee magaalada helayso waliba macaan oo sida naloo sheegay injineeru sheegeen meesha meel biyo macaan ay tahay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in loo keeno riigan maanta baahi badan aan u qabnay codsiyo badan oo u dirsan xafiiska biyaha heer deegaanna way ka soo jawaabeen aad u mahadsan yihiin iyagana marka waxaan rajaynayaa inaan noqon doonto maxay ahayd arrin meel dhal ah oo wax noo qabatay Lumaan Cabdi Axmed SRTV degmada Sheegoosh gobolka Qorraxay